annagu soo dhibtaasan haysata kadib aniguna aan ku soo noqday kaamkii markii dibadda la saaray dhibtaa darteed baan kaamka inta ku soo noqday iska soo tuuray dabaqa أنا سري دبقة كسوتو طبقة صدحات بس كسورة ومحاد كسوتو كولا لبعضها أيوة هيستمع شيء يقدر يلا أنت يو قابل لا أنت TV static gabar wadanka Austria qaxooti ku ah oo isku soo tuurtay dabaq 3 biyaana ah kadibna ka jabtay dhabarka iyo labada gacmood balse Ilaahay awoodiisa markii ay caafimaaday waxay samaysay wax aad uga yaabiyay Soomaalida inta aanan qisada u guda galin fadlan daawada hadii aad channelka ku cusub tahay subscribe saaro calaamada gambeelka ahna furo si aysan ku dhaafin xogaha aan baahin Nimca Muuse Axmed waa 24 jir ka soo hayaantay deegaanada Soomaaliland gaar ahaan magaalada caasimadda ee Hargeysa waxay tahriib ku soo martay wadamada Liibiya iyo Talyaaniga iyadoo aakhirkiina soo gashay wadanka Austria balse noloshu sidii ay filanaysay ma aysan noqon ma aysan helin quruxdii iyo dhalaalkii ay ku arki jirtay social media markii ay joogtay wadankeeda hooyo waayo waxay arki jirtay guryo qurqurux badan saradha dheer oo isku soo sawirayaan dhalinyaradii ay isku xaafada ahaayeen ama isku magaalada ahaayeen ee galay wadamada qurbaha Nimca waxay gashay kaam ku yaal wadanka Austria waxaana halqol la dajiyay 5 qof oo ka kala yimid wadamada Carabta iyo Afrikaantaba kuwa oo dhaqan iyo diin midna aysan wadaagin ciriiriga nolosha soo wajahay Nimca awgeed waxa ay gaartay heer ay iska tuurto dabaq 3 biyaana ah si ay nolosha isku dhaafiso waa sida ay afkeeda nooga sheegaysay dhibtaa darteed baan kaamka inta ku soo noqday iska soo tuuray dabaqa أنا سري دبقة كسوتو طبقة صدحات بس كسورة ومحاد كسوتو كولا لبعضها أيوة هيستمع شيء يقدر يلا أنت يو قابل لا أنت يو بوليس كان رجع كلاو هم يعني ودن كوانا كان نكو قابل سنة عندنا أفريقيا مركا دبقة كسوتو ريسي محاد مانك كويس مانك حكوها يبدينا نسكبر انتبه وين تستشهد دونيسي ها nolosha ay ugu adkaa Nimca Muuse waxay ahayd hooyo laba caruur oo dhashay kuwa oo da'doodu kala ahayd 1 sano jir iyo 3 sano jir markii ay soo tahriibaysay oo Soomaaliya ka timid ay uga soo tagtay wadankeedii magaalada Hargeysa qoyska Nimca waxa uu ahaa qoys ladan oo waxay ku noolaayeen nolol aad u qurux badan tahriibka Nimca Liibiya ilaa ay waxa ku baxday lacag dhan $8,000 hadii sabab ka badnaanba balse lacagtii maantaas lagu bixinayo maanta way ka shaqaysantay oo waxa ay leedahay wadankayga hooyo ayaan uga shaqaysan lahay hadii aan ogaalahay nolosha inay noocan ugu noqonayso safarkaaga hadda ku noqdo kharash intee la baa ku baxay waxay ugu baxay ilaa Soomaaliya ilaa wadanka waxay ugu baxay 4,800 oo Liibiya 4,800 oo Liibiya iyo 1,500 oo seen marka la keenay wadankan adu waxa ugu baxay 8,500 waxa la weydiiyay hadii aad ogaalahay lacagta intaas laakiin bixi lahayd safarkaaga halistiisa ma soo gelin hay ma soo galaan mana soo bixin lacagteeda waan iska haysan lahaa mana soo bixin mana soo doonteen haddaan saamooday lacagteeda waan iska haysan lahaa wadankayga wax kaga qabsan lahaa hadeen mooday ay ruunaysaa yaad uga soo tagtay Soomaaliya Soomaaliya waxa kastoo hooyaday iyo ciyaalkayga iyo aabahay iyo dadka awlaadeedii iyana laba ciyaal aan dhalay inaan baan dhalay sabsir way labaduba inankuna waa 3 sano inantuna waa 2 sano waa sanadii 9 bilood Amiiriya meel la kala yiraahdo daawadayaal gabadhii noocaas ahayd ee asturnaayda quruxda badneed ee aad arkaysiin oo qisada noogu sheekeynaysay sheegaysana inay dabaq isaga soo turto nolosha ciriiriga kuma ay qoys qaadan ciriiriga iyo rafaadka ay soo aragtay ee maanta waxay social media la joogtaa gaar ahaan barta loo yaqaan TikTok ayada oo sanka afka faruuriyaha carabka iyo dhanaxna gabadh duratay taas oo ay ugu daysanayso dhaqamo reer galbeed waa dadkii ay dhahaysay guriga leelada jisay aniga oo rabin waa dadkii ay dhahaysay waa dhaqan dad aan ugu dhaqan ahayn waa dadkii ay ka cabanaysay oo isku dabaq isaga tuurtay balse maanta dhaqankoodii ayay jilaysaa iyo waliba asoo ka sii falxun waxay noqotay qof lagu maaday social media markii la joogo oo waliba laga cuudu bileys dadka kuwooda iimaan kale waxay bedeshay guud ahaanba dhaqankii Soomaalida waxay ka tagtay asturnaantii iyo xijaabkii diinta Islaamka waxay ku dayatay dad aan asalkooda ahayn ama sabab aysan la noolaa karin waa sida ayadu ay sheegtay maadaama ay sheegtay inay dabaq iska soo tuurtay dadkan oo isla noolaa karin awgeed wadanka oo laga haajiro waxyaabo badan ayay ku tusaan ama ay ku baraan hadaad aragto qof wax la yaabaya waa qof Yurub ama wadamada reer galbeedku dhowr qofba way bedelaan reer baadiye qasab ku soo galay magaalo xariif tuulo jaariyad foodley la soo furay awrkoo ka cabay intuba way ku dhaxwaashaan dadka qaar ee commentiga u soo qoraya waxay oranayaan xadkii caydaba waa ay dhaafatan ee loo duceeyo waayo wax kale oo lagu miisaali karo ma jirto marba hadii ay taa gabar Soomaaliyeed oo dhaqankii ka tagtay Yurub wax ma yaalaan iyo waa lagu halaawaa waxaas waa sheeko xariiro ay Soomaalidu iska raadiciyeen
yurub waa ka qabsan kartaa soomaaliyana waa dhaantaa boqolkiiba boqol waa haddii dulqaad iyo hadaf adag aad leedahay yurub waxa ku halaawaya waa qof iimaankiisu awalba daciif ahay oo aanba xusuusan geerida cid kale qasab ku noqo gaal ama alkuulayste ku dhahayso ma jirto waa uun adiga iyo hadba waxa aad ka hesho ee Soomaalidan waalan oo aad arkaysaan waa mid dalkii wax ku soo dilay ama ku soo halaabay ee wadamadan loola soo cararayo sidii inay ku fiicnaanayaan Soomaaliland laga keeno ama Muqdisho laga keeno ama gobolada kale Soomaalida laga keeno waa uun isla Soomaalidii waana isku dhaqankii balse markii ay tagaan wadamadan Yurub waxaad arkaysaa gabdhihii Soomaalida ee asturnaa jiray ee quruxda badan oo hadda aad u malayso in la yiri naaska ibkiisa bisbaa cawra in ku ah ayagoo surwaal ku wareegaya magaalada ayaad arkaysaa ayagoo kalabiyada dhooban ayaad arkaysaa waxaad is leedahay waxaan wixii dhalay ma noola miya balse way nool yihiin ee way ka soo dhunteen waalidkood qaarna way la joogaan ee xurriyadda wadankan ka jirta awgeed ayaysan ula hadli karin ayaguna xurriyaddii ayay si qaldan uga faa'iideysteen oo ay dhaqankoodii quruxda badnaa ku dooriyeen iyo diintoodii waxa kaliya aan u qaban karno haddii aan nahay Soomaali waa inaan u duceyno gabdhahaas walaalaheena ee xurriyadda sida qaldan uga faa'iideystay waa kaliya waano iyo duco wax aan u awoodo waayo wax kale oo laga qaban karo ma jiraan qaarka wadanka jooga ee u heelan ee u fakanay in wadamadaas aadaan waxaan kula talin lahaa inay iska dhaafaan haddii ay iska dhaafi karin markii ay xagga tagaan in aysan dhaqankooda ka tagin oo niyadda ku sii haystaan waalidiinta ilmahooda la jecel inay Yurub u aadaan siiba gabdhaha wiilashu waxa baslada mararka qaar way ka rooyin dumarka siiba gabdhaha waxaan kula talin lahaa waalidkood inay marka hore ka dhisaan diinta oo ay si fiican ula qabadsiiyaan wala ay ka tagi karaan oo waxaan hadana hadhow dhayr u qaadan karaan hadana waxaan leenahay si fiican u wada darma haddii aadan ba awoodin inaad ka celisaan Yurub ayaga gabdhahan wiil iyo gabdhaba intii Yurub gashaan waxaan leeyahay waxa ka soo tagteen dad islaam ah boqolkiiba boqol oo Soomaali ah oo hooyo iyo aababa leh oo walaal leh oo ehel leh fadlan ha caabaynina dadka aad ka soo tagteen iyo dhaqankiina iyo isirkiina intaba waxaan oran lahay waxa jiro dad badan oo waalidoontoodii inta maqleen inay ku halaabeen wadamada qurbaha ay qaarkood waasheen qaarkoodna kooma galeen axin daraadeed qaarkoodna isdileen sida qisada kor ku dhacday nin oo reer galkacyo ah odagaas oo maqlay wiilkiisii curadka ahay oo Yurub u dirsaday in 20 sano markii uu Yurub joogay ka bacdi oo guursaday nin kale oo cadaan ah oo asaga gabar ahaan loo isticmaalo kadib ninka odaga warkii uu rumaysan waayay waa laga dhaadhiciyay ilmo kale oo xagga jooga wacay waa laga dhaadhiciyay waxa la yiri qisada dhab ah waayay waana ay dhacday wiilkaagiina nin kale qab cadaan ninka odaga ahay heer oo ka gaara naxdin tuurayba calosh isaga galshay isku dilo nafta isku dhaafay si aan loo dhihin ninkaas ayaa dhashay oo adaabihiista marka waxaan leeyahay walaalayaal intiina dibadda jirta dhowra oo waalidiintiin u naxariista oo annaka noo naxariista oo Soomaalinimo xataa fiirsha dadna diin fiirneen dadkan ugu xiran ee qisadan dhageysanaya ee na daawanaya hadda fadlan idinkuna u duceeya dadkan walaalihiina ah ee qurbaha ku halaabay ee jannada mooday naarta ee wadada xun ku socda ee dalkoodii inta ka tageen dal islaameed tageen haddana haya wado lagu halaagsamay oo Ilaahay mar hore ugu dagay waxaan hubaa intiina qalbiga jiracsan ee islaamnimada u damqanaya inaad si niyad ah ugu ducay doontaan dhamaanteena aan u wada ducay doono waayo waa dad kuwaana oo aan si naba nooga go'in oo di wax kasta la sameeyo anaga go'in balse ay ku mood inay naga xoroobeen oo ay diintanadii iyo dhaqankanaga ay ka xoroobeen balse taasu ay tahay been iska dhaadhiciyeen oo ay weligood naga xoroobi doonin nimco muusana waxaan leeyahay walaal si qaas ah Ilaahay ha ku soo hadeeyo Ilaahayna wadada aad ku socotay falxumada badan leh ha ka reebo walaal u nax ilmahaaga inta aad noo sheegtay hadda amiir iyo amiirada aad noo sheegtay xataa u nax walaal hadaad wax kale u naxeen oo yaan lagu maadeysan hadhow oo aan la dhihin hooyada iyo ayaa sidan yeeli jirtay oo falxumada dhaqan xumada la tusin oo hooyadiisu qaawun aan la tusin bari fadlan walaal hadaadna daawanayso waa laga yaabaa in daawado waana suurtagal boqolkiiba boqol hadii aad daawanayso walaal Ilaahay ka baq oo ilmahaaga u nax oo diintaada u nax oo waalidkaaga u nax oo Soomaalinimadaada u nax oo walaal isirkaaga u nax oo dhamaanteen annaka hana caabeen aduguna hays caabeen oo ka har faaxishadan iyo waxyaabahan foosho xun leh ee aad markasta noo soo bandhigto walba xataa hadii aad faaxishadan sameynayso qarso oo adigu gurigaaga ku samayso ee ha noo soo bandhigin annaka oo dadka kale ku sii fidnaan waayo kuwa niyadda ka jecel dhaqan xumada ee wadanka jooga waxay ku dhiirinayaan inaan sidaas oo kale tahriibaan ama ay wadamadaas aadaan si ay faaxishadas iyaguna gacanta ula galaan oo ay dhaqan xumadaas kula dabaqsadaan fadlan daawadayaal haddii aad channel ku cusub tihiin fadlan subscribe saarta calaamada gambeelka ana furta si aad ula socotiin oo ugu xiraatiin waxyaabaha barnaamijyada xiisaha badan ee aan hadba soo gudbino
oo midba midka kasii xiisada badan yahay waad mahadsantihiin dhammaantiin